diyaaradda markay soo degtay baxday baabuurta la soo xareeyay gadaa anagoo si shaqada lagu jiro baabuura qarxay barta ee diyaaradda istaagaysay oo diyaaraddu waxa ka dhiganaysay diyaaradahaasna ay dhibaato gaarto Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliya wax diyaarado aadi kara ma lahan intaas soo raadinay laakiin ilaahay maadiis non è il legge Givenito tutte di crede di dopo suicidio maamil 4 bilood dhalatay dhamaatayna ayaa lagu ahaa inuu mid qaad joogto ah bixiyo midna gaari nooha ah si joogto ah u cilad bixiyo goobtan waa degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose muddadaasi 4 bilood kadib heshiiskii ayaa isbedelay waxa uu soo baxay isagoo farsamaysan gaarigii markiisii hore laga shaqayn jiray soo daabulida jaadka soo gala Baraawe markanse isu soo bedelay gaari qarax ah bartilmaameedka muddo laga shaqaynayana waa in gabi ahaanba la soo afjaro duulimaadyada degmada dhulkana lala simo dhismaha airportka Baraawe lana gaafto nolosha shacabka gaarigii waa gaaray bartilmaameedka waana uu qarxay allase ayaan u dhigin sidoo qorshaha ahaa waxaase ka dhashay goobta dhimashada 2 muwaadin oo kala ahaa marxuum Umar Maxamed Xasan iyo marxuum Cabdi Cali Guure kana mid ahaa shaqaalaha madaarka Baraawe waxaa sidoo kale dhaawacyo ay gaareen laba xidig la xooga Xasan Cabdi Cismaan Faarax dable shuuto Maxamed Cabdullaahi iyo Ibraahim Siidi Cabdiraxmaan mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh saddexda eedeysane xafiiska xaraalintu wuxuu ku soo eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxda nabadiidka argixisada al-shabaab khawaarij ee ummad dhibaatada ku hayo mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh saddexda eedeysane waxa ka dhaxeeyo xiriir argagixisinimo kaasoo lagu qarxiyay eelaboorka garoonka magaalada Baraawe isla markaana ay ku dhinteen dad Soomaaliyeed ayna ku dhaawacmeen dad Soomaaliyeed mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha koowaad Muxudiin Maxamed Cabdi Bacoosh ayaa wuxuu wacay eedeysanaha labaad wuxuu ka wacay telefoon wuxuu ku yiri Saleebanow waxa iigu imaadaa bosteejada Kuuye Barow eedeysana Muxudiin ayaa hadalkaas dhahay wuxuu ku leeyahay eedeysana Saleebaan wuxuu yiri Muxudiinow aniga waa mashquulsanahay bosteejadana ma kugu imaan karo ee maxaa iga rabtaa wuxuu yiri markaas eedeysanaha koowaad Muxudiin ah Saleebanow waxaan ku hayaa shaqo oo ii imaaw Saleebaan markale wuxuu yiri ma kugu imaan karo laakiin waxaan ku soo diraa ciilow ayaa baxay wuxuu tagay bosteejada Kuuye Barow wuxuu ka soo qaaday caag shanlaha ah marka uu soo dhiibay Muxudiin wuxuu ku leeyahay caagaas qaad garaashka geey gaarigayga sar waardiyaha garaashkan iyo ku fahmin mudana gudoomiye garsooraal maxkamadda sharafta leh ciilow caagii soo qaaday gaarigii oo saaray gaarigii markuu saaray Muxudiin gaarigiisa la baxay subaxdii Saleebana gaarigii waday wuxuu gurigiisa uu geeyay Muxudiin Maxamed Cabdi Bacoosh Muxudiin intuu wada gaarigii wuxuu geeyay garoonka magaalada Baraawe waa ku baakinyay waana ka dhaqaaqay gaarigii sidaas uu ku qarxay waxaana ku dhintay 2 ruux eedeysanaha koowaad Muxudiin Maxamed Cabdi Bacoosh eedeysanahan marka hore waa milkiilaha gaariga waxyaabaha qarxa lagu raray marka xigtana waa shakhsigii soo kaxeeyay kalena gudbay baraha hubinta amniga oo aan ildeer looga eegin maadaama adeega airportka gudihiisa uu ahaa isla markaana uu kamid ahaa ciidamada Bacoosh ayaa gaarigii ku baakimay barta diyaaradaha ay ka soo caga dhigtaan ee runwayga dadka rakaabkana ay ka raacaan kagana degaan diyaaradaha halkaas ayuuna qaraxa ka dhacay isagoo aan fogeyn darawalka iyo milkiilaha gaariga qarxay mudana gudoomiye aad la ii soo jeediyay wax kama jiraan waa aniga askari qaran lahay gaarigana meesha meelada looga xiro waa kursigana haddii lagu xiro ninkii watay in lagu dili rabo oo dadkoo dhan baa kursigana lagu xiray ilaaha lagu ogo shaqo shughul inaan ku lahayn ninka makaanika aan gaariga u dhiibtay ee motorka iyo bedel aan dhahay horta waxaas ku xiray anoo meelo gaarigayga ku xiran oo anuu aan leeyahay oo shaqadayda joogtada aan haysto sababta aan meelo uga xiranahay oo haddana aniga aan u kaxaynahay oo eelaboor u geynayo gudoomiye wax kama jiraan waa ka gaariga iska lahay anaa iska leh marka ma ku shaqaystaa muxuu qabtaa gaari jaadan ku qaadi jiray tookan ku lahaa yaa ku xiratid gaariga ninka aan u dhiibtay motorka ilaa hadda garaashku dhex yaalla oo in liiga bedela aniga aan ugu talagalay motorka iga bedel ninka aan dhaana waa Saleebaan furaa gaarigana isaga hayay marka 4 maalmood aanu gaariga iga maqnaay maalinka shanaadna waa maalinka aan shaqada lahay subaxda guri uu keenay waa ta eelaboorka la aaday xilli jaada ahayd iskama aanan kantaroolin ama soo ma tagnay waa la baari gaari meelada wax lagu qariyo waa hadii wax la saaray ay yihiin inta saarna arki lahayd
haddayse arkin waxaa arki lahay nimanka baariyo amisooma gaari amisooma baartay kor iyo hoos baa laga baaray lagumana arkin boorkaan galnay gaariga matoorka ma lagaga bedelay ma laga bedelin matoor la'aan ma wada marka gaariga sida matoorkaaga ku yaala garaashka matoorka ilaa hadda garaash ku yaallaa waa laga bedela ma markay lagama bedelin matoor la'aan ma wada gaariga maya matoorkiis waa fiicnaa waa shaqaynayay gaari kalan ka soo dejiyey matoorkaas markii hore matoor kale cusub anay andersan ku xiran rabay leeguma xiran oo meena leegu xir gaariga gadoomiye ninka loo socdo oo in la dhibaateeyo la rabay oo dhibanaha horta aniga waay oo hantideedii nafteedii loo socday ani doorashooyinkan ka soo shaqeeyay intaas ciidamo la soo shaqeynay hal maalin shabaabna ma wicin imana soo wicin eedaasna shaqo ku milyan mudan gadoomiye yaa ku sheegay ninkaas inuu kugu xiray ninka waa ninka furaha gaariga hay waxa asaga qiraal uu yahay oo yiri ninkaana isoo wacay wuxuu yiri shaqan ku haya kaale iyo imaw anuu ileeyahay oo cidna waa isoo jirna waa sax laakiin cid kaale shaqan ku haya iyo imaw anuu aan dhahna ma jirto codadkaas kulay waa la helaa umaleynaa haddii baariyaasha laga rabaa soo maaha intaas waa mudan gadoomiye eedeysanaha labaad Sulaymaan Maxamed Cabdullaahi geerishlahan ayaa isna loo haystaa marka hore inuu ogaal u ahaa dhammaan isku dabaridka iyo diyaarinta gaariga qaraxa waana shakhsigii gaariga ka soo bixiyay garaashka gurigiisana ugu geeyay isagoo ku qalabaysan qaraxa darawalkii iyo milkiilaha gaariga ee Bocoosh ninka warkiisa maqlays ninka warkiisa maqlaa haye see u jiraan erayga uu sheegay horta ereybeen wax kama jiraan waa ani ninkan way soo wacay wuxuu dhahay Saleebaan oo iimaw u dhaha kuma iimaan kariya dhaha nolol maalmeedka bursana ciyaala u shaqeysta gaari karoola ka shaqeynay geerishkana gaarigana 4 bilood u yaale matoorka markaan matoona uu keensaday kaambi oo saaray lacagta kaambi taa karawaa matoorkii markii aan weydiiyo aan dhaho saaxiib matoorkii aan ku saar waqti wuxuu yahay wuxuu leeyahay biri qarash raasana biri damba qarash raasana maalinta aan wacab habeenkii markaan waxaan dhahay saaxiib gaariga matoorka aan ku saaray suuxi ma imaati may biri imaana lambar gudisana suuxi markaan lambar gudisana sidii suuxi markuu lambar gudiso sidii kadib markaa waxaan dhahay niyo gaarigaan meeshaan ku dhaxleysteen iyo mar walbana ku keenay asoo bad qaba u geen jiray 25 sano makaaniga gaari waqti walbana asoo bad qaba u geen jiray ninkan waxa uu sheegay wax kama jiraan waa meeqa sana ninka macmiltiin adi muddo badan gaarigan qarxay ma he gaari kale muule gaari kaas ka kaliya aan sameey jiray geerisko keesi jiray ku kala soo gadana ma ku dhax ko kala soo oo warka ma hay mar soo ko kala oo gurguri oo ifir gaar hebel meel jaal ifir u dhaxabo aad musafiris musafirin wax kama musafirin waxaan dhahay gaariga meel yaal ninkii weydiyo u dhahay ninka wareysaan dhan shaqo ku miliyaan dhaa macna hal gaari oo qabaaba hal gaari oo hal gaari oo laa adiga waa wacdada iyo sheekada waa soo wacay uu leeyahay maxay tahay oo soo wacay ana ma wicin asaa soo wacay haye anoo geerishkay goob shaqo iska joogo Saleebaan ma iimaan kartaa u dhahay subax khamiis ahayd muddo gadoomiye subax khamiis ahayd soo wacay Saleebaan ma iimaan u dhahay howl yar la iqabro ani shaqo ma qabi karo aan dhahay shaqaan ku jira gaariyan ka shaqeysanaa dhahay nolol maalmeedka ciyaalkii u bursanay nin ciyaal 10 caruur ka saa kadibna waa markaas taleefanka noqod ku jiro wuxuu dhahay marka cuniga guriga geeriska soo galay ciilo ma kula joogo dhahay ciilo ilmo jooga hadda soo galaan geeriska markaas uu dhahay ciilo ii soo dir ciilo sidaan ugu diray ani ciilo waxa ku maqana ogaa shaqadiina iska gala marka warbayo war kama hayo shaqadiina maalmeedka iska racdisana gaariga ka shaqeysanay ciilo waa u diray haddana taleefanka uu soo celi ciilo ma ku imaado dhahay ciilo ma arkinaan dhahay shaqadiina iska wata marka gadoomiye saas wax jiraan gaarigii qarax ku raran yahay oo ii keen asaa ku dhooy gaari qarax ku raran yahay ugu geen gadoomiye yaa u geey mar gaari ani 4 bilood oo geerish ku jir gaari 4 bilood oo dhalata asoo bad qabaan u geey jiraan 4 bilood dhamaato dhalata gaari geerish ku soo xariir jiray oo markaan geerish ku soo xariireen waxaan ku balan motor iyo kaambi aan u saaro oo baxsado marka wuxuu dhahay motor kaambi markaan u saare كام متورك حودا قرش راسا صباح سجاري أو قرحة أداء جيميا قرقي صباح جاري أنا أو صباح البنا أو جيجري صباح سو قرحة مركا أداء جيميا صباح البنا أو جيجري جاري عيلو مركا مو يديسي واحد مركا أوتجي هو صار لابنو أدقي عيلو وصل لابد جيرش وكسر لابد ما حكش غير عيلو وحنك أنا باورتو دقا جيرش سورجيس باورتو دقا مركا عيلو أداء مركو يصدر كلها أودرتي عيلو مركو يصدر له أنا عيلو وحنا مدينة كلها أوتك محدينا كورة هاي أنتكو علم تلف موت أنتكو ما عندنا مركز سعودة هي هو ما بستيج كوني برو هي هو ما بستيج كوني برو بستيج كوني برو هي هو ما ده بستيج كوني برو سيدي وتقع عنق عمل يعني مركز صالح معكو شيء مركز صالح تحبي مشي عنق هو ما هذا
shaqaan gaariyan ka shaqaysanaa luga caga xiraayay markuu soo laabtay cunuga maxaa xagee ka imaatay muxudiin xagiisa ka imaado dhahay gaari xirxir maayo ma ahayn waa furihiisa waa looyintiisa dhan ma shaqaynayaan wax loo shaqaynaya mal gaariga meeqa sana baraaw joogtaa ani 25 sano mudan gudoomiye 25 sano meeqa jeer hore lagu xiray ma ani shaqaaqa oo weli shaama noqon mudan dawlad noqon si caadi meeqa mar lagu xiray si caadi oo dad waxna dhaxmareen dad waxna dhaxmareen 2 mar 3 mar maxaa lagu haystaa markaas dad oo waxna dhaxmareen lacag xageeda lacag lagu yeesho niman oo alaab inta u soo qaaday lacagta macnaa lagu yeeshay lacagtana iska bixiyay eedeysanaha saddexaad Ismaaciil Maxamuud Ibraahin Ciilow isagoo fulinaya amarka eedeysanaha labaad Suleymaan uu ka helayo eedeysanaha koowaad Muxudiin Bacoosh ayuu busteejada Kuuya Barow ee degmada Baraawe ka soo qaaday caag lagu soo raray qaraxyada dadka ka hor hadalkooda maqleyno waa sagan beenta maan gudoomiye waan weergan raga beenta bana shugay mina ana waan shaqo kumle maan gudoomiye shaqadii maan mina gaari aniga makaan aniga mi lawaajista iska samaan dawalkii min gaari aniga mi ana shaqada lawaajista shaqaya nikan fursad sare yari mina nikan asalaam alayhi muxuu ku sameeyay asalaam mina adam xakamad lugeeyo asalaam hayri habeenada muxudiin baawrkiis asaaray dheh ayri mina من بنشيك هذا الأب بين أي صغر منها adiga muxudiin mutagt maya muxudiin ma tagin maya ismar kan muxudiin laba xidig la xooga Xasan Cabdi Cismaan Faarax dable xooga Shuuta Maxamed Cabdullaahi iyo Ibraahim Siidi Cabdiraxmaan dhibanayaasha nool ay ka soo kabanaya dhibta gaartay ayaa ina la jooga maalinta rafaqaraha cadaaladda aniga waxaan ahay ninka laba xidig le Xasan taaliyaha amniga airportka Baraawe baabuur nooha ah oo uu lahaa ninkaas Muxudiin oo meesha ka diiwaan gashanaay ayaa nugu qarxay waxa weeye ninka anigu waa ku dhaawacmay dadka kalena waa dhintay habraaca see ku soo galan baabuurta meesha waxa ku soo galay gaarigaanu meesha waa ka diiwaan gashanaay askarinimo ku diiwaan gashanay Muxudiin muddo wuxuu shaqaysay oo ninka 4 sano iyo jajaba 17 bishii shanaad ayaa ninkaanu subaxda kamida waxa weey hawshii aan ku guda jirnaa diyaaradii waxa way noonka imaataqaadka diyaaraddu markay inta timaad dajido dijaadka baxdo bacdeena la fasaxaa baabuurtii la soo fasaxay ninkan Muxudiin baakinkiya la geeyay waxa laga rarayay baabuurkii uu soo baakimay afar markii la saaray jawaan waxa waaye waa nagu qarxa gudoomiye ma garad meeshaas marka waxa dhimatay laba nima ku dhimatay aniguna waa dhaawacmay ninka laba kale oo xagga fadhiyahuna waa ku dhaawacay markii idinka dhacda meesha ka dhacda ogtiina ka warbixinaysaa le dhacdadii meesha ka dhacdo waa goobjoogan ahay din ciidanku ka tirsan qaybta ka tirsan Muxudiin askari anaga naga tirsan oo ahay amniga airportka ka tirsan amniga ma ka tirsanay laakiin askari shaqaysto oo ahayo gaariga noohada lahow ahay oo asoo ku shaqaysto gudoomiye ma garad in badan oo ku shaqaysay marka anagu waxaas ma aanaa ku ogeyn in askari uu noo ahay wanaagsan shaqaysta meesha ka diiwaan gashan marna ninka hawlihiisa ka qabsada marna meeshan ka shaqaysto ay gudoomiye ragga kale ma taqaan meesh fadhiyo maya Muxudiin la aniga aan aqaanaa dhabarka waxay gaareen dhaawac maxaa ka shaqaysaa see wax u dhaceen maalintaas eelboorka anuu joogay qarax ka dhacay meesha ka shaqeynaya maxaa ka shaqaysaa askarin waa ahay meesha qaadka dadka wala shaqeeya qaadoola aan la shaqeynaya baabuur aan ugu qarxay anoo sii jeedo intee wax ka gaareen marka dhabarka see xaaladdu ahayd marka wax dhacayaan maxaa qarxay maxaa dhacay xilli jaamay ahayd baabuurta dhan shaqaa lagu jiro markaas qaada imaadeen diyaaradda markay soo degtay baxday baabuurta la soo xareeyay gadaa anagoo si shaqada lagu jiro baabuur qarxay oo meesha waligiis qaadka qaadi jiray adi marka jamaa ku gaaray maya hilibka waxay gaaray bis gaari yar oo barobakis adrawalka ah gaarigaas waxaan ku qaadaa qofka jaadka mas'uulka ka ah marka waxaan u tagay shaqada jaadka meeshaas mar walba waa tagi jiray markaan tagay kadib anagoo shaqadii jaadka ku jirna oo jawaan qaad atalayo ayaa wixii dhaceenba jawaana tulis ku fururay kadib kool baa igu dhacday bis
markaasay ugu wardambeysay كل بس إيه inaa qaraxii iyo wixii معناها هذيك أدو سيجي دو قاشات كده عميم شرطة كده عين أنتوا كده عين gacanteeda bidix وباور كيالي annagoo sii foror hal jilib baa dhulka iyaala midna kor baa u hay jawaana tolay jawaankii anoo ku fororo tola iyo bis inay wax igu dhaceen oo sida qof baawur lagu dhufto camalaan dareemay meeshaasaan ku dhacay markaasay ugu wardambeysay markaasi wax ku gaareen xaaladaad soo naqad kadib cabaaraan jiifay anoo jiifo waa soo kacay iyo waxaan arkay garabkiiyo dhinacan hilibka ilaalaada madaxiiyo dhiigaayo bas waa kacay kadib waaba dadaa ii imaad waana leega wada meesha baabuurka qarxiyaa lahay muxdiin aa iska lahay gaariga qaadka qaadoo ka mid ahay mar walbana wuu joogi jiray meeshaan ka wada shaqay jirnay isna meeshuu joogay qaraxaasi waxaa ku dhintay allah u naxariistee marxuum cumar maxamed xasan oo 33 jir ahaa kana xoogsan jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh marxuumkan allah u naxariistee marxuum cumar maxamed xasan wuxuu ka mid ahaa dadka ka xoogsada garoonka magaalada Baraawe ee jaadka ka xamaasha marxuumka wuxuu aabbo u ahaa oo adduunka uga tagay 5 gabdhood mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaa kaloo goobtaas ku dhigtay marxuum cabdi cali guure 45 jir ahaa asna ka mid ahaa dadka ka xoogsanayay jaadka kana xamaalanayay garoonka marxuumka allah u naxariistay sida aan xog ku helnay wuxuu ahaa nin xamaaliya oo meeshaasi ka shaqaysta waxa uuna ifka uga tagay 9 gabdhood iyo 3 wiil mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh waxaa goobtaas ku dhaawacmay asigana laba xidigle xasan cabdi cismaan farax sidoo kale waxaa goobta ku dhaawacmay dable shuute maxamed cabdulaahi iyo ibraahim siidi cabdiraxmaan fiqi oo dhaawaca asigana shacabna ah mudana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh marxuumka sawirkiisa inta uu bad qabay marxuum cumar maxamed xasan 33 jir ahaa kana mid ahaa dadka ka xamaasha dejinta diyaaradaha qaadka sida allah u naxariistee marxuumka waxa uu ifka kaga tagay 5 caruur ah oo gabdho iyo 5 caruur ah oo gabdho ah iyo hooyadood sawirkan waa marka uu dhintay allah u naxariistee marxuumka marxuum cumar maxamed xasan waa marka uu dhaawaca soo gaaray marxuumka labaad allah u naxariistee wuxuu ahaa marxuum cabdi cali guure 45 jir ahaa kana mid ah dadka ka xoogsanayay garoonka diyaaradaha Baraawe allah u naxariistee marxuumka ifka wuxuu uga tagay 12 caruur ah iyo hooyadood laba xidigle xasan cabdi cismaan farax oo ahaa taliyihii amniga garoonka Baraawe ayaa ku dhaawacmay qaraxa ay geysteen 3 eedeysane ee aan sare ku soo xusnay waxa uuna dhaawac ka soo gaaray cajirka lugta bidix oo muraqeedii baxay sidoo kale waxaana bir ka gashay isha korkeeda dhaawiciisana waxaa loo qaaday isbitaal Digfeer waxaana lagu dabiibayay muddo 3 bil ah waa kana birtaas ayaa laga baxshay muruqiisa markii uu dhaawaca soo gaaray uu labisnaa wuxuu ahaa sarkaal labisan shaqadiisana ku guda jiro dhaawacaas waa laba xidiglaha muruqa la baxshay waa halka ay birta ka gashay dable xooga shuute maxamed cabdulaahi waxaa dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe waxaana bir ka gashay dusha iyo 3 meelood oo gacanta ah sidoo kale waxaa ka gubtay dusha waxaana ay jiiftay muddo 4 bil ah waa kaasa dhaawac soo gaaray gabadha askariyada shuute maxamed cabdulaahi sawirkan waa dhaawacii soo gaaray waa dusheeda dhabarkeeda ibraahim siidi cabdiraxmaan fiqi waxaa dhaawac ka soo gaaray qaraxii ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe sidoo kale ibraahim wuxuu darawal ka ahaa gaari caasi ah oo qaada qaadka sidoo kale dhaawaca waxa uu ka soo gaaray garabka iyo wadnaha waxa uu isbitaal jiray muddo 4 bilood ah waa kana dhaawaca ibraahim siidi garabka iyo wadnaha dhaawac ka soo gaaray warqadaha cadeynta dhimashada ee isbitaalka gaariga eedeysana muxudiin maxamed cabdi bacoosh oo lahaa meesha uu ku qarxay waxa waaye barta ee diyaaradda istaagaysa oo diyaaraddu caga dhiganaysay meeshaas ayuu gaariga ku qarxay
wakaasaa gaari inoo hadaha cadda waxaa waaye buuggii baabuurka iyo warqadihii nootayooyinka badan oo soo mara waa kuna waraaqihii nootayooyinka qiraalkii laga qoray labada eedeysane. natiijada baarista booliiska ayaa fadhigan sidoo kale maanta lagu dhageystay. mudana gudoomiye kiiskan waxaa eedeysanayaal ka ah 3 eedeysane. eedeysanaha koowaad Muxudiin Maxamed Cabdi Bocoosh ayaa lagu magacaabaa. eedeysanaha labaad waxaa lagu magacaabaa Saleymaan Maxamed Cabdullaahi Yaasiin iyo Ismaaciil Maxamuud Ibraahim Ciilow. saddexdan eedeysane mudana gudoomiye qof walba wuxuu leeyahay door gooni ah ayuu ka qaatay kiiskan. eedeysanaha koowaad Muxudiin waxa uu ahaa qorsheeyaha kiiska iyo fuliyaha dhamaanba, halka eedeysanaha labaad Saleymaan uu yahay wuxuu ka qayb qaatay inuu gaariga hayo isagoo qaraxa saaran oo og una sheegin ciidamada. gaariga qaraxa waxaa la soo saaray 15 bishii shanaad 2025 maalin khamiis ah, waxaana qaraxaas gacantiisu ku soo qaaday eedeysanaha saddexaad kaas oo ila gurigii ka soo qaaday eedeysanaha koowaad keenayna garaash uu ku xareysnaa gaariga. garaashkaas oo uu ku sugnaa eedeysanaha labaad oo lagu magacaabo Saleymaan Maxamed Cabdullaahi. eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad waxay awoodeen inay laamaha amniga ay la wadaagaan markii waxaan loo soo dhiibay ayagoo ogaaday waxa ay yihiin, ayagoo og lama wadaagin laamaha amniga. eedeysanaha koowaadna waaba qorsheeyaha iyo fuliyaha keyskan oo ugu dan lahaa in uu ku baabi'iyo ummadda Soomaaliyeed ee ku sugnayd goobtaas. mudana gudoomiye keyskeena baaritaanka intaan ku jirnay waxaan shaybaarka cilmiyeysan ee forensic aan ka codsanay in la isu barbar dhigo. eedeysanaha koowaad markaan wareysan horta wuxuu cadeeyay in uusan wax xiriir ah la lahayn eedeysanaha labaad, uusan aqoon u lahayn, waxaana uu iska dafiray in uu waxaas oo dhan uu qayb ka yahay. laakiin annaga baaritaankeena uma sii joojinin. waxaan sameynay shaybaarka cilmiyeysan ee forensic waxaan ka codsanay inay noo xaqiijiyaan xiriirka dhexmaray eedeysana Saleymaan iyo Muxudiin taariikhda markay ahayd 17 bishii shanaad iyo 16 waxayna noo soo cadeeyeen in xiriir dhexmaray labada eedeysane. cadeyntii forensic soo saartayna waa tan. waxaa kaloo jirta eedeysanaha markii uu qaraxa dhacay isaga dhaawac ayaa gaaray, isaga laftigiisa wax yar dhaawac uu gaaray, laakiin eedeysanayaasha kale oo la soo qabtay labada eedeysane midna waxa uu ku shaqeynayay garaash, midka kalena waa nin iska baagamuunda ah. waana 3 qofood oo uu amiir wuxuu kaloo sheegay labada eedeysan 3 qofood oo mid waxa amiir ah ninka la dhahayo Muxudiin, labadan kalena waa 2 qofood oo xubin oo la shaqeyso oo ka amar qaato hawlo kalena hore u fuliyana. laakiin keeskan kaliya maadaama aan soo baarnay aan xaqiijinay inay keeskan dhammaantood ay ka wada qayb qaateen. eedeysanayaasha labada eedeysane labaad iyo saddexaad waxay ku andacoodeen in haddii ay sheegaan arrintan uu Muxudiin ugu hanjabay dil toogasho inuu ku sameyn doono oo labadooda uu dili doono sida ay noo xaqiijiyeen cadeymaha nooga qoreen. mudane gudoomiye baaritaankeena waxaa noo soo baxday annaga waxaan soo baarnay noo soo cadaatay in eedeysanayaasha saddexdooduba ay keeskan wada galeen kana wada qayb qaateen qaraxaas ka dhacay degmada Baraawe maalinta Sabtida 17 bishii shanaad 2025. Muxudiin nin aad aqoon loo leeyahay oo la yaqaan u ahaa Soomaa eelboorka ha ka shaqeyn jiray oo ka diiwaan gashay. ma jirtaa horay gaariga inuu u wada jiray meeshaasna dadka ka shaqeysto uu ka mid ahaa way jirtaa Soomaa? waqti badan ayuu ka shaqeynayay meesha Soomaa? goobta oo qaraxa laga saaray garaash ayay ahayd Soomaa? gaariga garaash ayuu baakinaa qaraxa garaashka lagu dhex saaray. in muddo inuu farsamo u yaalay garaashka gaarigu waa jirtaa Soomaa? maya gaarigu uu shaqeynayay qaad buu qaaday tooku lahaa maalin walba tookiisu qaadanay. arrin ku saabsan cilado oo garaashka loo geeyay ayaa jirta Soomaa? maya waa lagu xareyn jiray garaashka motor in la saaray oo motorkaas way jirtaa Soomaa? maya dhaawac inuu ka soo gaaray asaga waa jirtaa Soomaa? dhaawac fudud gaariga dabcan marka meesha la tagaayo baaris badan oo soo maraa Soomaa? gaarigan wuxuu ahaa gaari ka diiwaan gashanay eelboorka ayagoo 3 baabuur kaliya ka diiwaan gashanay, marka waa gaari ikhtisaas u lahaa inuu galo eelboorka. baabuurta eelboorka galayso baaris ay maraan Soomaa? baaris ay maraan baaristii caadigeed oo la mari jiro maray gaarigan Soomaa? baaris oo maray nidaam ay u gooniyahay baabuurta diiwaan gashanay baabuurta kale waa kala duwan yihiin
isaga marka baabuurtii diiwaan gashineed qaabkii loo marsiinayo maray waa la xaqiijiyay inuu asaga wata kaliya darawalka baabuurka subaxaas waday wuxuu ahaa Muxiidiin Soomaa gaariga darawalkiisa isaga waa isagaana le isaga darawalka goobtaas waxaa lagu baaraa oo joogo ay loo adeegsado baarista sax Soomaa ay baarista loo adeegsado maya intaad ku guda jirtay baaristaada waa aad ka qortay sida uu kuu sheegay inuusan isaga shaqo ku lahayn ee gaarigiisa loogu soo maleegay asaga sida uu kuu sheegtay waa ka qortay Soomaa eedeysanaha labaad oo qareenka u ahay Salebaan asagoo faldambiyeed faraha kula jiro lama soo qaban Soomaa faldambiyeed markaas marka la soo qabanayo goobtiisa shaqo ayuu joogay Soomaa gaariga uu sameynay oo isheeg loo qaraxay loogu adeenayo dhowr mar ayaa gaariska la keenay waana sameeyay gaari wuxuu ahay soo hooyanayo baxayo asana makaanig ayuu ka yahay soo kuma sheegay aqoonta ka dhaxayso eedeysanaha labaad Salebaan iyo eedeysanaha koowaad iyo eedeysanaha saddexaad aqoon shaqo ayay eedmaa Soomaa xiriir ka dhexeeyay oo shaqadaas ah eedeysanaha labaad iyo eedeysanaha koowaad ninjaad ka shaqeeyo ahaa maalin walba markii jaadku uu soo qaado wuxuu jaad siin jiray eedeysanaha labaad muxuu sheegay inuu jaad siin jiray marka asir afkiisa kaga sheegay gaashaanle dhexe Maxamed Cumar Saney ku-xigeenka xeeraryaha guud ee ciidamada ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha koowaad Muxiidiin Maxamed Cabdi Bocoosh ay ku xukunto dil toogasho ah halka eedeysanaha labaad iyo saddexaad uu codsaday in xabsi daa'in ah maxkamadda ay ku wada xukunto kow eedeysane Muxiidiin Maxamed Cabdi Bocoosh kuna meelaasna magaca Maxamed Cabdiqaadir Muxiidiin Maxamed Cabdiqaadir oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu qofkii mas'uulka ka ahaa qaraxa ka dhacay magaalada Baraawe oo ay ku dhinteen labada marxuum ee kala ahaa Cabdi Cali Guure iyo marxuum Umar Maxamuud Xasan waa qofka suurad xumeeyay ee sawirka xun ka bixiyay dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan garoonka magaalada Baraawe Muxiidiin waa qofka tusiyay in Soomaaliya diyaarado ganacsi iyo diyaarado rakaaba mid imaan karta aysan jirin waa qofka tusaalahaas bixinayay balse Ilaahay mahadiis ma dhicin wixii uu rabay ujeedkiisu wuxuu ahaa in qarax ka dhaca meeshaas wax diyaaradahaasna ay dhibaato gaarto Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliya wax diyaarado aadi kara ma lahan intaas oo raadinay laakiin Ilaahay mahadiis ma dhicin mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh Muxiidiin maadaama uu ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama uu la shaqeynayay khawaarijta ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku hayo dalkana dhibaateynayay oo si heeso ula shaqeynayay maadaama uu mas'uul ka ahaa qaraxii ka dhacay garoonka magaalada Baraawe sidoo kalena mas'uul ka ahaa inay dhintaan dadkaasi Soomaaliyeed dhaawacmaan agoontinimeen carruurtaasi Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh Muxiidiin Maxamed Cabdi waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay dil toogasho ku xukunto oo ah qisaastii labadii marxuum ee dhimatay Allah u naxariistay sidoo kale eedeysane Suleymaan Maxamed Cabdullaahi Yaasiin iyo eedeysanaha saddexaad oo Ismaaciil Maxamuud Ibraahim oo labaduba ahaa dadka la shaqeynaya Muxiidiin wax ka ogaa qaraxaasi in la soo qaaday in la yiraahdo sheegina in la yiri garaashka wardiyaha joogiyo iyo sanada arkin in la yiri hadaa sheegtin waa idin dila waxa soo dhan iiga og waxay kamid tahay inay wada shaqeynayeen mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh labadaasi eedeysanana maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa inay ku xukunto xabsi daa'im maxkamaddu waa maasanta qarinada difaaca uu ahaa saddexda eedeysane ayaa dhankooda dalbaday in muwakiilintooda la siiyo xuriyadooda maadaama caddayn dhammaystiran aysan keenin xafiiska xeerlaalinta magacii waa wakaata Cabdullaahi Cabdiraxmaan waxaa qareen u ahay eedeysanaha saddexaad Ismaaciil Maxamuud Ibraahim mudane gudoomiye waxay ahayd maadaama ku jawaab inuusan gelin eedaas xafiiska xeerlaalinta ciidamada waxay ahayd inuu caddeeyo si aanan shaki ku jirin si waafaqsan qodobka 110 iyo 163 inuu u caddeeyo si aanan shaki ku jirin xafiiska xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sidan uu ku guul dareystay arintaasi mudane gudoomiye muwakkilkayga wuxuu u eedeysan yahay eedeysanayaasha maxkamadda hor joogo warkii ay sheegeen oo kaliya
wax kale oo caddeyn ah oo maxkamadda la hor keena ma jiro mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh muwakkilkii waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab xafiiska oona u soo qaaday gaarigaasna uu soo qaaday alaab uu soo qaaday oona goob garaasha keenay mudan gudoomiye muwakkilkeyga wuxuu u sheegay in uusan caaga shanlaha uusan qaadin uusan shaqona ku lahayn garaashka la sheegay in qarax lagu diyaariyeyna uusan ka shaqeynin oo ka madax banaan yahay ninka garaashka iskalena uusan shaqaalo u ahayn laakiin uu leeyahay goob ganacsi oo baabuurta lagu dhaqo labaajooyinka baabuurka lagu dhaqo taasoo aabihiis oo camoolaa uu leeyahay una shaqeeyo aabihiis mudan gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh garaashka waxaa la sheegay inuu waardiye leeyahay garaashka maadaama uu waardiye leeyahayna wax kasta la iskama gelin karo qof kasta oo garaashka gelayo waxaa waardiye loogu sameeyey waardiyaas in uu baaro qof kasta oo garaashkaas gelayo wax alaale iyo maaragtay mas-uuliyada ka dhalanayso garaashkan waa ogta waa maaragtay mas-uuliyad gaar uu leeyahay alaab hantiya taalo waxna lagama gelin karo waxna lagama soo bixin karo waxaa qofka keliya wax gelin kara iyadoo la baarin waxaa waa qofka milkiilaha oo iskale garaashka qofkaas keliya wax gelin kara haddii wax la gelinayo laakiin nin aanan garaashka ka shaqeynin in la dhaho waardiyaha iska ilaali taasi waxaa waaye maaragtay wax dhici kara maahan mudan gudoomiye muwakkilkeyga aqareen ku ahay mas-uul kama noqon karo garaash uusan ka shaqeyn wax lagu sameeyey dhibaatada ka dhalataana mas-uul kama noqon karo taas xafiiska xeraaliyaha guud wuxuu sheegay inuu qaraxaas mas-uul ka yahay taas oona mas-uulna kama ahan wax caddeynayo inuu mas-uuliyaddaas qaatana maxkamadda lama keenin waxyaabaha lagu soo eeday wax shaqaa uu ku leeyahay oo maxkamadda la hor keenana ma jirto meel uu shabaab ugu biirana ma jirto shaqo uu u qabtay weligiisna lama keenin mudan gudoomiye wuxuu sheegay in eedaysanaha labaad wuxuu sheegay in waa wacu dhah mudan gudoomiye taleefankii uu ka wacay marna wuxuu sheegay inuusan taleefon lahayn warka uu sheegay xataa haddii la raaco eedaysanaha labaad warkaasaa iska hor imaanayo wuxuu sheegay markii koowaad inuu wacay oo taleefon u diray wuxuu sheegay markii labaadna inuusan taleefon lahayn taas oo meesha ka saarayso warbixinta uu sheegay xataa haddii la qaadan lahaa xataa eedaysanaha labaad oo aysan ahayn warbixin jirto oo been abuure taa mudan gudoomiye laba eedeysane oo labadaba eedeysanayaal ah oo mid kastaba isdifaacayo warbixinta uu sheegaana caddeyn ma noqonayso si waafaqsan qodobka 199 wuxuu sheegaya labada eedeysane iskuma mark furi karaan mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh haddii aad soo gabagabeeyo difaacayga maadaama aan la keenin wax markhaati ah oo sheegaya in muwakkilkeyga uu ka soo qaaday muxdiin oo eedeysanaha koowaad inuu qarax ka soo qaaday una geeyey eedeysanaha labaad wax caddeynayo ama markhaati ah oo maxkamadda la hor keena maadaama aysan jirin mudan gudoomiye maadaama uusan qiraal sameynin maadaama uu weligiis howl uu u qabtay shabaab aanan la keenin oona aan la caddeynin weligiisna xiriir uu la sameeyey ama meeluu tababar ku siiyana aysan jirin mudan gudoomiye waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanaya in dhammaan eedeymahan muwakkilkeyga dusha laga saaray in maxkamadda ay ku weyso xoriyaddiisana loo celiyo mudan maadaama uu yahay nin maskiin ah oo aabihiis oo indhaha la oo camoolaha u shaqeeyo waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanaa in maxkamadda xoriyaddiisa u celiso ehelkiisa iyo waalidkiisana uu u shaqeeyo maxkamadda sharafta intaasaa ka codsanaa maxkamaddu waa mahadsantaha magacayga waxaa waa abukaati ismaaciil xalane waxaan qareen u ahay muxuudiin maxamed cabdi si waafaqsan qodobka 15aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eedan markaas soo qoraysid inaa haysid waay cadeynteedii si waafaqsan qodobka 110 iyo qodobka 163 oo oogista uu ku sameyn lahaa ma sameynin sababtu uu sameynina waa kortaga waa dul istaagaya wuxuu keenay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa la soo bandhigay dhibanayaasha waxaa ugu horeeyay ninkii ciidanka ahaa ee xasan cabdi cusmaan faarax maxkamadda markay weydiisay wuxuu ku jawaabay muddo 4 sano ah oo wuxuu ka shaqeynayay muxuudiin eraboorka nin wanaagsan uu ahay haddii nin xun oo yahay wuxuu dhihi lahaa nin xun oo ahay wuuna dhibaateeyay inuu nin wanaagsan yahay intuu ka sheegay meeshan aan taaganahay uu ka cadeeyay nin wanaagsan oo ahay 4 sano uu shaqeynayay wax dhibaato ahlan kumaynan qabin marka mudane gudoomiye marka la joogo qaanuunka wuxuu leeyahay qodobka 20aad in la isku xiro
dhacdo iyo fal iyo natiijo meeshaan waxaa la keenay natiijo bes la keenay dhimasho iyo dhaawac waxaan la haynin marka falkan iyo dhacdadiisa cid tooska u leh lama haayo waxaa la yiri woo geesto woo sameey baabuurkiisa wad nacam baabuurku waa wada kaliya qofka in baabuur la wato sharci waayo sharci diidaya ma jiro qofku waa wada karaa okay waxaa aqli gal mudane gudoomiye oo maanta maxkamadana laga dhaadhicinaya nin naftiisa iyo maalkiisa iyo shaqadiisa burburinaya maana laga dhaadhicinaya xasha lillah waa midaan maangal ahayn sababtaysan ku ahayn waxa waaye muxuudiin waa milkiilaha baabuurka isaga ayaaba dhibaato loogu geysanayo oo la rabay inuu ku dhinto baabuurkaas isaga nafsadiisii ayaa carqalad lagu geliyay xafiisku wuxuu soo bandhigay mudane gudoomiye warqado oo leeyahay buug baabuur ha fiiriso maxkamadda buugga baabuurka waa kan waxaa ku qoran cabdilatiif maxamed saalaxa qoran cabdilatiif maxamed saalaxa qoran cabdilatiif maxamed saalax ninkaas ma la dhahaa waa maya okay wuxuu soo gudbiyey xafiiska sidoo kaleeto wuxuu soo gudbiyey warqad kala gadasho halkaasna waa ka arkeen oo nootaaye warqadda kala gadashada waxaa la wareegay mudane gudoomiye cumar sheekh cabbaas cumar waatana ma la dhahaa cumar lama dhaho haddaba warqadda uu ku iibsaday anaa maxkamadda la wadaagayo ee ku qoran tahay muxuudiin waatana warqaddan inaysan maxkamadda hayninaan u malaynaya ogi kartaa warqaddaas waxaa ku qoran inuu iibsaday saxiixa iibiyaha maxamuud muxuudiin maxamed cabdi taas marka laga soo tago marka mudane gudoomiye ma jiraa qiraal laga qoray eedeysana muxuudiin waa maya ma jiro wuxuu sheegay oo ku jirtay xafiiska xir ilaalinta gudbintiisii in ismaaciil loo yeeray uu yiri wiilka kula shaqeeyay ii soo dir maantana maxkamadda muxuu ka cadeeyay inuusan garaashka ka shaqeynaynin oo shaqo ku lahayn waa koow muxuu cadeeyay inaysan asiga iyo muxuudiin is aqoonin u yeerin waa labo intee ka baxday marka loo dhiibay caag shanla la dhiibay meeshaan waxaa lagu celceliyay caag shanle caaga shanlaha waxa ku jira xataa mudane gudoomiye lama sheegin lama dhihin caaga shanlaha miinaa ku jirtay caanaa ku jira subagaa ku jira maxaa ku jira caaga biyaa ku jira saas waa jawaabta meeshaas marka la joogo marka baabuurkan miinada ma lagu xiray mase laguma xiray bilcumuum in lagu xiray bilcumuum inuu qaraxi dhacay laakiin sababta loogu xiray maxay tahay waxaa lagu dhibaateynayaa hantida uu leeyahay iyo nafta uu leeyahay muxuudiina lagu dhibaateynayo markii uu gudoomiye eraboorka ka shaqeynayay waxaa imaanaysay niman cadaan oo la shaqeynayay dowladda ciidamada tababaro siinayay lagu soo dhaweynayay goobjoog uu ahaa hadduu wax dhibaateynayo dadkaasuu u geysan lahaa dhibaato hadduu wax dhibaateynayo ra-iisul wasaare Roble oo ka degay eraboorka oo ka shaqeynayay oo joogo oo gaarigiisii ku daabulaya raashinkii la cunayay martidii la soo qaadayay oo ka shaqeynayay ma ka shaqey lahay maya markaasuu dhibaato geysan lahaa oo dad mas'uuliyiin uu beegsadayaaba la dhihi lahaa hadday macquul tahay laakiin qof jaad ka baac mushtaraayo oo naftiisii uu dhaafiyey maanta inta lala soo istaaga xasha lillah waa waxaa dhici karin mudane gudoomiye talyaani wuxuu leeyahay non è il legge divenito tutte di crede di dopo suicidio macnaha waxa waaye mudane gudoomiye ma waxaan maangal ahayn qof ayaa nafsadiisa iyo maalkiisa iskugu daraayo iyo shaqadiisa oo ku baabi'inayo haddana waa noolaha la leeyahay caqli gal miya waxaas waa maya waa waxa maangal ahayn waxaa lala soo istaagay oo la yiri taleefanada waa la baaraa waa la dhegaystaa dibaa loo raadiyaa waa la ogaadaa intaa la soo bandhigaya codod xafiiska xil ilaalinta ay keeni jirta ayagoo dadkii wada hadlaya aan dhegaysan jirnay aan la arki jiray ma waxaa la heli waaye muxuudiin iyo Saleymaan hadday sheekaysteen wixii ay ku sheekaysteen ma la heli waaye taas maana laga dhaadhicinaa waa may waa waxaan suuragal ahayn mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa la yiri
xafiiska xil ilaalinta eediisii waxaa ku jirta gabagabadiisii daduu agoontoomeeyey daduu asaay u saaray okay waxaa la rabaa specific in loo caddeeyo looma caddeynin hadal caadi ah waay because hadalka marka lagu dhawaaqayo waa inuu sharciyeysan yahay qaanuunna uu leeyahay uu ku qotamaa mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh anoo u hambeyn doono qareennada saaxiibaday ah waxaa kaloo jirta mudana guddoomiye garsoorayaal muxuyadiin isagaa wuxuu yahay dhibane isagaa ku dhaawacmay isagaa hantidiisii ku waayey isagaan maantana u baahan cadaalad inuu ku helo maxkamadda horteeda therefore anuu ka minguuraya marka arrintaasi ayada ah maxkamaddana aan u dayn doona cadaaladda ay maanta ka garnaqi doonto maxdarkan hortiisa iyo waxyaabaha lasoo bandhigay ma yihiin wax looga qanci karo in muxuyadiin uu yahay nin dhibkaasi geystay waa maya intaas markaan joogo mudana guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh anigoo cuskanaayo mar labaad qodobka 13 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waa in qodobka guud laga tiraa eeda qodobadan kale la soo dul saarayna cadeyntiisii maadaama aysan jirin maxkamadda qareennada kale tan u reebayaa difaacayga aniga intaas ku eg yahay maxkamadda ma hadsan tahay waxaa aad iyo aad aan u riyaaqsanahay aan ku raacsanahay qareenka sharafta leh ee iga horeeyay ee saaxiibkaya abukaat Ismaaciil intuu sheegay wax yar ayaan rabaa inaan ku daro qodobka 13 wuxuu sheegayaa waa weydiiyay baaraha qodobka wuxuu sheegayaa in xoog meel lagu galo qodobka 13 xeerka la dagaalanka wuxuu sheegayaa in xoog meel lagu galo muxudiin meel uu xoog ku galay baaraha ma sheegin ma jirtuu yiri meel uu xoog ku galay xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sido ma aqaano xoog ku gelidaas meesha keeneen ama meel uu la wareegayba isla qodobkaas qabo fal hadda muxudiin lagu eedeeyay oo la leeyahay falkaas uu suubiyay oo loo helayo barkay wax kasta waxa loo baahan yahay kabid 184 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee waxa sheegayo in loo baahan yahay marqaati afarta jidoo marqaati loogu baahan yahay mid kamid oo la keenana ma jirto 184 hadan qodobkaas mid xitaa oo fiirino farqadiisa arkay maqlay ama lagu gartay macluumaad ama kulle intooda mid la daliishtay oo la keeno ma jiro sidoo kale waxaa jira aayad quraan 282 suuratul baqara waxay si cad u sheegaysaa haddii qof lagu eedeynayo in loo baahan yahay laba qof oo marqaati ah inkastoo laba qof oo rijaal ah la dhawayaa si cad oo diinta u sheegtay xafiiska xilalaha ama baaraha ma naqaano meel ay ka keeneen barnaamijkaas barkay goobjoog ma ahayn ayaga inay la mid yihiin cid ay ka soo xigteenna waxay maxkamadda la soo hortaageen dheen anaga ilahan ka soo xigteenna maxkamadda ma keeni karno qofka warbixinta ku keenaan maxkamadda la keeni karna laakiin qof marqaati ah waa la keeni karaa informatoraha ayaa laga reebay sida qaanuunku uu qabo laakiin marqaati aan qarina taariikhda ma aqaan meel ay ka dhacday waaran aan lafteeda ugu 7 sano oo ku socda ugu weyn ugu tahay waxa aad ay uga hadleen xafiiska xilalaha ciidamada qalabka sida waxay aad uga hadleen waxay dhaheen caag sida qaanuunku uu qabo 172 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waa qalabka dambiga lagu galay leeyihiin hadda marqaati leeyihiin caaga waxba ka haray inta rabta la ekaata xataa hadduu qarax ku dhacay ilaa fartidaas la ekaato lama hayo meel ay ku sheegaana ma jirto marka meeshaas waxaa mugdi galayaba oo maxkamadda xataa inay u garwaaqsato ay tahay in uu sheyga la sheegay aysan jirinba marka bacdama waxaasoo dhan oo intaan sheegnay ay muhiim u tahay in lagu gaaro cadaalad qof bini aadan ah oo annagana la mid ah karaamo leh xorriyaddii laga qaaday waxyaabaha ugu qaalisanna ay ka mid tahay xorriyadda nafta xorriyadda xigto in afka baarkiisa lagu eedeeyaa waa mamnuuc intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa difaacayga waxaan u dhaafayaa qareenka saaxiibkaya gabagabadiisa mudane guddoomiye garsoorayaal mar haddii aysan jirin caddayn bannaanka ka ah labadaa nin saddexdaa nin mar haddii aysan jirin
sabab keeni karto qof maalkiisa naftiisa inuu meeshaas ku bixiyo mar haddii aysan jirin airportka wax ku soo kordhay macnaha meesha wax ku soo kordhay oo cusub oo la dhahay waxaas maanta loo socday mar haddii gaariga uu yahay gaari garaas laga soo baxshay suuragalna ay tahay garaashkaas dad cadow u ah ninkan baabuurka iskale in laga heli karo mar haddii waxa qarxay baabuurkiisa iyo naftiisa uu ku dhaawacmo ay tahay mar haddii aysan jirin wax caadi ah maxkamadda la hor keenay mar haddii gudoomiye aysan jirin cid loo socday oo la rabo 434 si loo dabaqo in la dilo cid loo socday mar haddii gudoomiye uu yahay cidda dhibku ka soo gaaray hadday tahay maalkiisa oo gaarigii ah hadday tahay naftiisa oo asaga ku dhaawacmay hadday tahay shaqadiisa oo asaga uu ku waayay shaqadii ay tahay cidda dhibanaha ku abxiidin mar haddii amiirnimada la sheegay aan cid caday karta aysan jirin baarisna aysan ku soo bixin sababtoo ah waxay ahayd baaris in lagu soo saaro hadduu amiir yahay goormu bilaa maalin kastaan galnaa dacwadan waxa la dhahaa hebel waa shabaab uu noqday wuxuu gala taariikhdaas intaas oo tababar macnaha waxa la rabaa silsilad sax ah in lagu keeno ninkan ma jirto mar haddii gudoomiye shabaab inuu yahay wax cadayna oo asagiina uu sheegan oo qiraal ahayn marqaatiyaal ku cadeeyna aysan jirinin tababar iyo baaris lagu soo saarana aysan jirinin sirdoon soo saarana aysan jirinin asagana inaysan jirin shabaabnimo iyo amiiru noqdana halkaas ay ku baaba'day cidda dhibanahana oo asaga uu yahay waxa maxkamadda ka codsanaya kow lambar kow in si waafaqsan 120 horta kow asaga xorriyadiisa la siiyo lambar 2 baabuurkiisa waa baaba'ay in la cidda faldambiyeedka iska leh ama garaashka ha ahaato ama ciddii ha ahaatee in mas'uuliyadda la dul saara garaasha baabuurka laga soo waday cidda garaashka iskale baabuurkaas dhibkii gaaray magdhowgaha in la dul saaro waxaa sidoo kale ka codsanaya maxkamadda dhibaa jiro asaga ku yaalo xaniintay waxbuu ka sheeganaya in maxkamaddu asagana dhagaysato ay qiimeyso dhibka ku yaalo sidoo kale waxa maxkamadda ka codsanaya baarista meeshay ka halowdo uu sheegaya asagu inay maxkamaddu dib u raacdo cidduu dhibka ka tabanaya inay hubiso lambarka xafiiska qareen xalna uu soo gudbiyana la hubiyo maxkamadduna tilaabo ka qaado maxkamadda maasanta mudane gudoomiye waxaan qareen u ahay eedeysanaha labaad oo la yiraahdo Saleebaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Maxamed Cabdullaahi Yaasiin si waafaqsan qodobka 15aad iyo qodobka 16aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ma jirto mudane gudoomiye marka cid oo wax loo diray ama gaari keentay loo dhiibay intaba ma cado maadaama wakiilkay marka uu yahay geerash ka shaqeeyo mudana ka shaqeynaayo una yahay mechanic wayna cadahay maxkamadduna way baari kartaa ayada naga aqoon badan in muddadii joogay iyo intuu ka shaqeynaayo intaas markaa ka gudbo mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh baaraha kiiska su'aalaha aan weydiinay waxaa ka mid ahayd goobta inuu tagay ma tagin sidoo sheegay geerishka lagu sameeyey oo la geeyey caaga inuu geerishka tagay geerishkana ma tagin sidoo sheegay xogta saxda eedeysanaha markaa weydiinana aan dhahna eedeysanaha ma wareysatay muddadu degnaay iyo xogtiisa nololeed ma sheegin sidoo qodobka 24 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye oo ah baarista waxaa la rabaa in baarayaasha kiiska ama baaraha kiiska in uu soo cadeeyo kiiskan min bilow ila dhamaad intuba ma cado wax marag ah uu keenay oo maxkamadda maanta la dhigi karo kiiskan way ka marqaati kici karaan ama way ka hadli karaan ma jiro maadaama intaas ay jirin mudane gudoomiye khilaalka uu sameeyay uu sheegay inuu yahay bas intii laga qoray alaabta la keenana meesha la saaro oo san garanayn kaliya meeshaas wuxuu u joogay shaqo oo kaliya qofka marka mudane gudoomiye maadaama uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo na shaqeysanayo ma la dhihi karo waxa uu shaqeysanay si waafaqsan qodobka 15aad ee dastuurka milgaarka ee GFS wuxuu leeyahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay xorriyadiisa shakhsi iyo nabadgelyada qofnimadiisa mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh wakiilkayga wuxuu goobtaas kaliya u joogay waa shaqo uma joogin qarax uma joogin inuu waxyaabo dhibaato gaarsiiyo uma joogin inuu ummad dhibaateeyo kaliya wuxuu u joogay inuu shaqeysanayo shaqada uu shaqeysanayo oo ehelkiisa iyo nolol maalmeedkiisa ku bursanayo
wax kale oo dheeraad ah maanta maxkamadda la horkeenay ama lagu caddeyn karo muwakkilkayga oo ah in dembiga inta eed lagu eedeebo aysan shaqo ku lahayn caddeyn ahaanna looma hayo maxkamadda horteen lama horkeenin ayaguna isku markhaati kici karaan sababtoo ah kulli waa eedeysanayaal anagoo marka gudbaya gabagabada kiiska mudane gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa mar haddii aysan jirin wax caddeyn ka dhan ah muwakkilkayga Suleymaan mar haddii aysan jirin markhaatiyaal oo ka markhaati kici karo kiiskan mar haddii aysan jirin waxa la sheekeynayo oo caag iyo wax la mid iyo ay maxkamadda la horkeenin wax ku jiro la aqoonin waxay yihiin ma Ibrahim mise waxa ku jiro mise ma ku jiro maxkamaddana ma laga hor caddeyn mar haddii aysan jirin qof dhihi karo ama lagu baaris lagu sameeyo muwakkilkayga oo la taaban karo maxkamadda horteeda waxaa maxkamadda sharafta ka codsanaynaa si waafaqsan qodobka 122 muwakkilkayga inay xorriyadiisa siiso inay asaa dhibanana wuxuu u yahay maanta gaari uu sameynayo weliba gaariga uu sameynayana waxaa laga yaabaa in waxyaaba qaarkood lacaga inuu ka qaadanayo lacagii xataa uusan helin macaamilna ay ahaayeen haddii la dhahayo maxaa u shaqaysanayna waa howl kale oo shaqadii loo diidan yahay marka waxaan maxkamadda ka codsanaa in intaas aan kusoo kabo difaaciyay maxkamaddan aad u mahadsantahay السلام عليكم. waa dhegeysanayaa waxaan ka fahmay waxaan rabaa ciddii waxay ugu caddeyn lahayd in la helo adiga way handadigu lagu leeyahay raggaas maxay u handadi mudane gudoomiye nin xiran oo maxaabiis ah nimankan waxba lama yeelin 27 maalmood aanoo jaabay ugu dhufneed oo caddeemo loo haayo oo ay laftooda ay ogyiin oo goobjoog u hayaan hal xaba lama yeelin adiga markii lagu xiro baraaw lagu xiray ma lagu sii daynino meeqa maalina ku marka hore xirnay aniga 3 maalmood kadib waa lagu sii daayay maya aniga hal maalinkii ay shilka u dhacay ma habeenkii saldhigan joogay subaxdeeda dambe joogay maqribkii oo kale waxa la yiri orta xaafadda iska baxaa lagu dhahay ragga mal reey markaas ma xirnay ninkaana xiran Saleewaanka ninkaas waa maqan yahay marka ninka adiga ku fasaxay goor meeqa saac lagu soo xiray meeqa maalin kadib lagu soo xiray hadana aniga 3 maalmood oo maqnay talaado iyo arbaca khamiis galabkii jumcaan tale ururka soo wuxuu dhawaa xirantahay saldhigii mow adiga saas lagu fasaxayo access lahay ma dib lagu geysto kuwaasna waa la dhaafmaya ninkaan xirnay ninkaan lama soo xirinba ninkaan anaa wax ka soo qabtay adiga ninkaan markii shilka u dhacay oo meesha wax ka dhacay tale ururka u yimid gaarigii ahaa gaari Saleebaan ayaan dhahay nin liiraad intuu jooga garaashkaas uu joogaa waa soo baxnay garaashkii la yimid ninkaan la soo qabtay waa la xiray anna waxa la yiri reesta tahay maalinkan joogay habeenkeedii kale waxa la yiri orda xaafadda iska aad adiga yaa dib ku xiray marka tali urkii haddana isoo wuxuu yiri waa xiran tahay maalinka jumcaha la isoo xir telefoon uu isoo diray tag saldhig degmadu yiri asoo ku dhahay sababta maxaa markaas kullay ma qaana waa xiran tahay saldhig tag yiri awalna ayaga ay fasaxay haddii mar tali urkii uu soo wacana aan dambi isku ogeyn dambiile ahayn oo dhibana ahay waa soo bax saldhiga imid si la igu xiray marka see adiga dib lagu gaarsiinaa adiba taas lagu fasaxay lagu soo celinaya ku gaarsiinaa dib qofka saas laga yaqaan saldhiga ma okay waxay gaarsiinaa niman baara oo si ay dhiyaan lahayd dhahaya yimid oo bay dhawo ka yimid marka baarista ku xirtamaya marka timid baarista ku xigta kadib nimankaas bay dhawo ka yimid katiinada la igu dhuftay maalin waxa la igu dhuftay 4 saac oo subaxnimo leegama furin waxa laga furi jiray marka badarka la isiinaayo katiinada laga furi jiray gacantana laga furaa badara cunaa waa lagu celshaa saas oo xirnaay adag Saleebaan maqleeno waa maqlaay adoo leeyahay asaa qaraxi dalbaday marka hore xageen ku dalbaday marka labaadna asaga dhahay hadaa sheegtaa idinka waa ciidan oo ahay waxaas mudane gudoomiye hal xabba kama jiro waa beentiis meel aan qarax ku dalbadan male qaraxna kama shaqeeyo 43 sano jira shabaab iyo meel ay joogaan iyo waxay lu kuleeyeen waligay ma gelin teleefonadeeda la baari karaa dadka aan la joogan laga soo ogaan karaa wax ka jira lama arko maxkamadda waxa ka codsanay maxkamaddan waxaan ka codsanaa in cadaalad helo aan ka codsanaa maxkamadda sharafta leh Saleebaan u dhib Saleebaan ninkan baabuurka alaabta garaashka la ugu saaro leeyahay makaanigan ay saar alaabta wax shuqul ah kuma leeyahay nin ma xoogsta miskiina ciyaalska korsaa waligiina barnaamij ciidan magadin shabaabna ma noqon dawladna ma noqon waligii nin xoogsto ilmihiisa xoogsta waxa ahayd anoo dambeys hadda qaraxana la isku haystaa qaraxan shuqul ma ku leeyahay mudan gadoomiye yaa saar gaariga oo adiga sameeysay qaraxan wax shaqo ani aan ku leeyahay maanta waxaan saaray ma dhahay ninkan way soo wacay ma u dhahay Saleebaano waa ka diiday ani shaqaan haystay waa shaqaysanay markaas telefoonka ka hadlay ciilo soo galay
ciilo waa markaas waxaan dhahay ciilo muxudiina ku rabee u tag muxudiinkii siduu ku aaday ciilo markaas waa goorma waa adii maalin khamiis ahayd adii abbaare 3 saac meelahaas ahayd mun gudoomiye saas wax u jiraan mun gudoomiye aan wax shaqo ku milihi warkaaga waxaa kamid ah markaan u tagay kadib way handaday inta aan gaariga wadan markii inta gaari aan wadin maalintii oo qarax dhacay subaxeed markii la xiri doono aan xabsiga ku jiro abaar ku inta soo ciihin ninkan haka xabsiga ka hor xabsiga ka hor subaxii gaari marka u geeyaan uu yahandiday muxuu ku dhahaa hadda isku hayso kugu dhaca ikhtiyaarka ugu dhaha hadda isku hadishid wixii kugu dhaca ikhtiyaarka isaga gaari kale oo markaas ku tashan yahay ma jiro gaari kale oo soo gadanayo ama wax uu ku sheegay ma jirta habeenaha kamid oo soo wacay asa wuxuu dhahay gaari hebel ka warn gaarigaas gadar waay gaarigaas ma aqaan nima watay soo fiirsan gaarigaas inaan ka taaro ay fiiriyo dhaha marka eega sabinkeeda miya maya waa ka horeysay mar dhow miya markaas ma mar dhow ahaade waqti dhow waa nooc ma gaariga markaas gaariga yaa iska lahay gaari kale no hawa hata codad kale raaca hata hadda kan qarxayna muxuu ahaa kan hadda qarxayna no hawa hadalka sheegaysa ciilo waa diiday ma jirto leey ciilo beenu sheegaa aye ka mid gudoomiye maxkamad maxaa ka codsanay maxkamadda waxa ka codsanay in xorriyadda la siiyo toban ciyaal kursaa ahaa oo xamaashata biriska ay xamaasho mid gudoomiye wax dhibaato weli dad ma gaarsin dad ma aan dulmin wixii dhacayaa la saaliyeena markii la raacana qarix mid gudoomiye hadda xorriyadda in la siiyo aan weli waxmaan sameyn qof iska xoogsata horta maxaa ku baxay fahmayno dooda socod ma aragtay ma dhageysis ma tadam ma qaad dooda maxaa ka fahantay aninka waxaan taagay marka ameeshan oo gaari min oo saar cadeen marqaati abaanani cadeen ha ku dambeysay maxaa ka fahantay dooda waxba ka fahmay wax ka fahmay no lidooda inta markaa imaato wax ma laga qoray oo maxkamadda waa ku garaaci miya qofki wax ka qoray ma ku garaaci indhoo shitano sabay warkii bravo laga soo qor sheeg wax kale ma sheeg kartid asaliye qofki ka qoray ma ku dhaa wax kale ma sheeg kartid kii inta ka qoray maxkamad maxaa ka codsanay in xorriyadiisa ma dhawa in xorriyadaada lagu siyaaro hadda abi amalay oo shaqasta hooyan oo dhimatay cid aan leeyahay mesh dad ma joogo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaladka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdi fataax khiyaar warbaahinta qaranka muqdisho